maxay idin diiday ka engineer ahaan inaad macnaha idinku qaybtiina electriga baratay ee Soomaalida intaad midow samaysaan isla markaasina aad xafiiskii hawlaha guud in ka kaashanaya had u sameyn weydeen kuwo u hadla dadkan codka lahayn ee deegaankeena ah oo markaas iyagu caawiya baahiyaha ay qabaan ma isku dayday si volunteer ah inaad hawlaha uga hawlgashaan oo xafiiska hawlaha guud tusaale ahaan had la talisaan ama utility-ga waaxda sheegaysay leerka ma isku dayday waxa dhacday oo soo martay aniga in anoo dhex jooga oo in yaro shaqo ugu tagay meesha intaan hal saac 2 saac subaxnimo aan galay inaan 6 saac ka soo baxay sidii aan macnaha dadka iyo iyaga isfahansiintooda aan uga shaqeynayay utility-ga jijiga warada oo taa volunteer ahaan aniga oo ma garanaysaa maxaan ku dhahaa dadkii lacag lagu soo dalcay qaabka loogu soo dalcayna ma fahmin qayb baa kaarkii wata kaarkan ima shaqeynayay leeyihiin iyagana way isfahmi laayihiin sidii macnaha iyaguna ay xirfadayaal ugu dari lahaayeen dadkaana ma garanaysaa maxaan ku dhahaa lacagihii iyo wixii lagu sheegay ay u bixin lahaayeen dad badan oo kala hadlay baa jirta xafiiska hawlaha guud Ali taa ima hirgelin nooma hirgelin tan kale engineering association oo ururka injineerada ah oo wax walba inay furaan loogu talagalay yaa la aas-aasay taana waa tan aan maanta u wada fadhino insha Allah in ma garanaysaa maxaan ku dhahaa horay uu socon doono wax walbana ay iska kaashan doonaan injineerada ururka dalada ku midoobay association-ka Somali region baan filayaa waxa weeye hal baan rabaa inaan taabto oo ka hadlo halka aan rabaa inaan ka hadlo waxa weeye project-yada leerka ee socda way taagan yihiin project-yada leerka ee socda way taagan yihiin sababaha ay u taagan yihiin waxa kamid ah concrete ball laan shubka loogu talagalay waxa wada project-ga jijiga Universal Access Electric Program project-ga la dhaho yaa wada intaas oo degmo oo hadda socda oo hadana taagan baa jira waxa kamid ah tusaale ahaan hadan ku soo qaato gunagada kamid ah waxa kamid ah dhagax madow baa kamid ah 1 iyo 2 ba waxa kamid ah golchana kamid ah waxa kamid ah ceel weyn oo intii la design gareeyay la dhameystiray agreement-giina la galay uu yaalo waxaad ogaan kartaa maalin ka dambaysa in ma garanaysaa qiimuhu uu sii kacayo project-ga 2 sano ka hor agreement-ga lagu kula galay muxuu noqon karaa maanta xagee dheelaab ku tagi karaa xagee ma garanaysaa maxaan ku dhahaa kirada baabuurka aad wax ku soo kireysanad ku soo qaadayso u tagi karaa caqabadahaas baa ka jira waxaan filayaa dadka ganacsatada ama maalqabeenka ah hadii ay isu tagaan oo ay diyaariyaan shirkad samaysa jijiyo ku samaysa jijiga iyo maqala waa isku mid Somali region caasimad bay jijiga u tahay maqalana Tigray region bay u tahay caasimad waxa weeye saab keeni karta in la dhaho concrete-ka maqala looga soo raraya jijiga oo ay u laato anu ma garanayo marka ka xukuumad ahaan garab istaag baa looga baahan yahay kamaal qameyn ahaan investment in lagu sameesto concrete ball-ka MV iyo LV buu kala baxaa concrete ball-ka la isticmaalo ee project-ka uu sameeyo guud ahaan leerka saddex baa loo kala qaadaa high voltage medium voltage iyo low voltage baa loo kala qaadaa high voltage waxaan wada ogsoonahay ilaa 100 substation in ka badan in Ethiopia ka jirto deegaankeena 6 baa ka jirta high voltage substationada 6 substation waxay kala yihiin waa hadhagaale waa fiiq waa jijiga waa dhagax buur waa qabdahar waa gudi halkii substation uu gaarsiin karaa leerka 120 km radius square-ka uu gaarsiin karo waxa weeye bulsho badan oo deegaankeena oo degmooyin ah yaa wali ku leedla substationada in la badiyo oo xafiiska hawlaha guud qorshayaasha uu qaadan hayay ee koobaad ee uu federaalka ka soo dhameynaya substationada in la badiyo waxaan maqlay oo maqal igu ah in Hargeysa substation lagu daray oo kaasna uu noqon doono markii la dhiso kii toddobaad uu noqon doono 120 km waad garan kartaa intay tahay intay gaarsiin karto jijiga substation markuu u bato wuxuu gaarsiin karaa 120 km oo dhan kastaba ah harshin markay ugu baato waa harshin waxa weeye wixii harshin ka sareysa wuxuu noqonayaa off grid buu noqonayaa maadaama off grid noqonayo taa waa meeshaas taas waa high voltage-ka haddaan ku soo noqdo medium voltage-ka waxa weeye waa 120 ka laftiisa project-yaasha ka soconaya weeyaan
MV boolka MV boolkaasaa loo baahan yahay in lagu sameeyo jigjiga LV bool baa jira oo 4 gees ah ama arad maasan la dhaho 4 gees ah asagana ma garanaysaa maxaan ku dhahay in lagu sameeyo jigjiga waxaa sameyn kara oo qorshaha hirgelin kara investment maalgashadayaasha iyo hirgelin kara deegaanka u dhashay iyadoo oo xafiiska hawlaha guud uu ka jeegareynayo qalabkii loogu talagalay ma keeneen ma hirgelin karaanoo 10,000 oo bool haddii loo baahdo xafiiska mawraad haylku wuxuu bixiyaa waxaad qabato unbuu ku siin xafiiska mawraad haylku markaad wax qabatay oo kaa jeegareysto unbuu lacagta kuu shubi inta ka horreysa waxba kuma siinin maadaama saa tahay waxaa loo baahan yahay dad intay wixoodii maalgeliyaan iyagana ka faa'iideysta bulshadiina uga faa'iideeyay projectyadeenu ma istaageen Ethiopia la jaan qaadi lahayn marka waxaan ku soo gabagabeynayaa wariye Cali Barkad aad baad u mahadsantahay su'aalaha aad taabanayso ee dul istaagayso waa wax ma garanaysaa bulshadeenu tabiiso aad baad mahadsantahay aan ku xijisiyo waan soo gabagabaysan doonaa si guud waxaad uga hadli doontiin walaalkeen horta ha galo kadib waxaad gali doontaan bal sidii idinku aad u midoobi lahaydeen iyo xalka loo baahan yahay deegaankeenu inuu qaato ee ah dhinaca dhismaha oo ay ka maqan tahay deegaankeena Soomaalida dadkii u dhashay wax soo bartay injineeradu inayna fursado u helin inay guri dhisaan balse dad buuraleyda sare ka yimid ay inta badan u badan yihiin engineering ma baran laakiin waan garan karaa qofka si lahaan shalay inuu u dhisi karin qof markaasi aan u dhalan deegaanka maxaa idinka engineer ahaan idin diiday inaad fursadahaasi had ka faa'iideysataan oo aad markaasi aad hawlaha guud ahaan iyo xafiisyada ay khosayso idinkoo kaashanaya dawladda oo inta badan isbedelku intuu dhacay u dhagan nugul inay dadka la hadasho isla markaasina wax la qabato dadka wax soo bartay ma isku daydeen inaad markaasi idinku waad xiriir iyo galaangal samaysaan sidii aad suuqaasi private sector kaas bannaan aad buuxin lahaydeen awalan arintaas hore baan isugu daynay waxaanu sameynay urur la yiraahdo Somali Engineering Association xafiiska hawlaha guud waanu la kaashanay doctorka abtaa shaqixi waan la kulanay horay arintan waan dhaqaajinay urur baan sameynay Engineering Somali Association la yiraahdo xiroosaadkii wax kasta waan dhamaystiray waan soo saaray in leesankii loo saaray bisit haw dhiman xafiiska waxaan ku wada hadalay in loo sameeyo injineerada maaragtay meel isugu yimaadaan dalad caadi ku midoodaan kadibna xafiis loo furo secretary loo sameeyo injineeradu ay ka shaqeeyaan dhibaatooyinka jira tusaale dhibaatooyinka jira maxay aan isla qaadnay ahaayeen kow qoomiyadahan kale meesha ka shaqeynaya dad Soomaaliyeed deegaanka u dhashay oo shaqaysan kara baa jira oo Soomaali ma shaqaysato eriga leeyahay waa erey been ama loo fiirsan way shaqaysan karaan dadkii bedel lahaa way joogaan marka in dadkan qoomiyada kale korkooda priority la siiyo dadka Soomaalida ah marka koobaad haddii laga maarmi waayo oo qoomiyadahan kale la yiraahdo tusaale ahaan sida Djibouti oo kale iyo dadka noocaas ah ee kuul ahaan loo isticmaalo laftigood in loo sameeyo leesan ay ku shaqaystaan oo haddii cashuur laga qaadi karo haddii laga warhayn karo waxa laga yaabaa in dadka laftigeeda ay u shaqeeyaan alaabaha ka xalan baa dhici karta taa laftigeeda in laga warhayo ururkan hore buu soo jiray haddana waxaan tabacsanahay inaan sii dhaqaajino hawlaha guud oo kale ee su'aalahan tabacsanahay inaan weydiino waxa kamid ah tusaale ahaan lees waxaad arkaysaa nin baa qandaraas buu qaadanaya qandaraaska markuu qaato nin injineero Soomaaliya ayuu ka qaadanaya adeer ninka kale laga ma yeelin qoomiyada kale inuu ka soo qaato leesan ay dokumentigiisi adeer dokumentiga ay dib u dhahaya dokumentigiisi marka uu ka qaato qandaraaska uu helo nin kale qoomiyad kale isaga yeeranaya odaygi leesankii wiilkan injineerka Soomaaliga waa lagu galay qorshaha hawlihi guudna way ku siiyeen laakiin shaqada uma shaqeeyay ma oranayo wiilka leesankiisa aan ku galay meesha ay ku shaqaysanayay shaqeeyay ma oranayo waxaan u aaminsanahay haddii arintaas hawlaha guud ay dhaqaajiyaan oo ugu tala galaan leesankan ay sameeyeen nin kasta oo leesanka runka kale ka sameystay inuu u shaqeeyo injineer shaqada lama waayeen waxay xitaa isku day lahayn dadkooda kale ee jilicda sane ka hooseeyay inay soo kiciyaan oo u shaqeeyaan baba la awoodi lahaa iska bada iyaga ta kale mustaqbalka kale sanad kasta waxa soo qadan jabiya 200 ilaa 300 injineer ta xafiisuna hadii la yiraahdo xafiisyeed baan daba soconun dadka kuma wada filaanayaan deeqda Ilaahay moogtahay dhulka mooda gaadhay Soomaalida tirada mana wada gaadhayso markaan waxaan aaminsanahay hadii dadkan nin kasta oo shaqeynaya haday dhismo tahay haday leer tahay haday biyo gelin tahay haday wax walba tahay hadii nin kasta ninka uu leesanka uu maaragtay ku qaatay uu shaqeeyo dhammaan ka soo qalin jabinaya macal shaqa leeyahay macal mustaqbalka soo socda future-ka macnaha dhalinyarada soo qalin jabinaysa arrin wanaagsan buu ahaan lahayd ku shaqaysan karayaan taas aan oran lahaa haddana waxaan damacsanahay arrintan si volunteer ahaan inaan dhaqaajino xafiis furo
injineerada anagu cidna uma kala eegin oo wax alla wixii technology ilaa computer baa ku jira dhammaan cid walba oo arrinta khusayso inay ka soo howlgasho kii gudoomiye ka noqon kii ku shaqayn kii maaragtay u doodi kii ka hadlay in walba inuu yimaado arrintan oo maaragtay ka howlgalo oo dhibaatooyinka xalliyo waxaan aaminsanahay wax kasta oo tahay dhibaatadii biyaha laga soo sheekeeyay leerka laga soo sheekeeyay wax kasta haddii isku duubni la helo oo dad maaragtay midaysan oo nin walba uu selfish ahayn oo gaar u shaqaysanaya haddii aan noqonin waxaan aaminsanahay dhibaatadan wala baabi'in karaya waana laga hortegi karaya marka waxaan ku talin lahaa anigu calaa kulli xaal in dhibaatooyinkan si guud looga wada hadlo la wada shaqaysto la iska warhayo cid walba oo arrintan khusayso ay timaado ay hawshan ka hadasho dhibaatooyinka biyaha oo kale ee gasalhaan xalay habeen hore oo kale roob baaday ee wada arkayseen magaalada daad baa qaaday maxaa dhibaatada ugu wacan waxa ugu wacan drainage magaalada oo saxsanay waa tii laga soo hadiyay disaster rigging weyn wax kale ma taasoo kale magaalada tog bay leedahay toga dhanba gebigiisa inta retaining goal loo sameeyo drainage laga dhigi kara oo biyaha wixii qaybta ka imanaya xagga wajaara iyo wixii xaggan ka imanaya geenu joogno labadaba toga la soo keeni kara togana hareerihiisa retaining goal baa laga sameyn gebigiisa magaalada dhanba biyaha si drainage looga dhex saari karaa dhibaatooyinka waa dhibaatooyin la xallin karayo eega salahan jaamacadda waxay sameysay laba kanaal oo laba heerar ka soo mara hal kanaal oo ka soo baxa baa jira halka kanaal biyihii wadada jibriga ka baxda ayaa waxay ku daraysaa tii jaamacadda drainage marka falowgii baa wuxuu ka batay capacity kanaalka biyihii la soo duway iyo kanaalkii yaa de waxa ka awood badanaya biyihii la soo duway marka biyaha xaggaas hadii toga lagu soo ridi lahaa ama wadadan kale ee maxay universal soo hormartay inta halka la soo mariyo tayga la dhisayo haga toga laga soo ridi lahaa de flow waa la manageeyn kar lahaa marka anu waxaan aaminsanahay hadii si guud loo soo xidhnaado in hawshan laga maartay laga taaqulusi karo ayaan aaminsanahay saasan ku soo gabagabeynay aad baad mahadsantiin si guud farinta iyo guud ahaan waxaad tabaysaan imaankiina ka guuxay haddii aan su'aashii ka jawaabo wariye cali barkad horta su'aal aad muhiim ah ahayd maxaa injineerada u diiday inay galaan maxay ahayd private sector-ka maxay u shaqaysan lahayn horta caqabad baa jirta caqabada jirta waxa weeyaan waa caqabad aan ururkan aasaasnay seeta markaan aragnay caqabadaas ani mashruuc baan ka shaqayn jiray waan faahfaahin doonaa caqabada jirta marka waxa jirtay mashruuc baan ka shaqaynayay mashruucan ka shaqaynay markaan caqabado fara badan arkay oo injineeradan inay private sector-ka galaan injineerada deegaanku ka hortaagan ayaa waxaan go'aansanay in dalad aasaasno ka shaqaysa injineerada say ugu fududeyn lahayn inay private sector-ka galaan wadankii iyo xukuumadii iyo deegaankiina ugu faa'iideyn lahayd waayo hadii xukuumadda wax kasta leeyahay iyadu may qabato ma qabsoomayaan hadii bulshada laftigeedu wixii xirfadle oo is xilqaamin wixii hantiile investment leh ama hantiile oo qaar isku xilqaamin qolo kasta ay qaybteeda isku xilqaamin waxa jirta tan tusaale soo qaato waxaad arkaysaa nin baa oranaya guriga la dhiso injineer Soomaali u imanaya injineerka Soomaaliga wuxuu u sheegayaa xaqiiqdii gurigaasi lacagta dhabtay oo ku kacay maadaama soo xirfad la soo bartay yahay markaasoo waxaan lacag uu ka tagayaa nin qoomiyad kale u yeedhaya wuxuu ka oranaya maadiga ha waxaan kugu dhisayaa 120 deetana gurigiiba wuxuu tagayaa lacagtii loogu tala galay lacag ka badan waxa si dhab uga dhacay jigjiga laba qiso oo aan u taagnaa wadaad baa waxay dhisanaysaa meel yar oo 4 tiir meelaha 5 tiir waxaan ka badnayn iyo guriga qaybta hore ku dhisanaysaa waxa dhacday marka in la yiri inuu yimid ku yimid inta Soomaha konton kun baan kugu dhisayaa kontonkii kun buu yiri waan ku dhisayaa deetana markay 2 bilood 3 bilood joogtay guriga 150 kun bay 4 tiir isu taagay hadduu horta injineer gacanta ku hayo inta ma tagtiin wax sax buu sheegi lahaa waxa laga yaabaa inuu 70 kun oran ama 60 kun oran lahaa marka ruuxan ay tagto ruuxan xulay 30 kun baan kugu dhisayaa waa xirfad la maaha magac ma ilaashanayo sumcad ma ilaashanayo isagu bulshadiina way ku dhacantahay kharashkii loogu tala galay guriga kharash aan ahayn baa gala tayadii guriga age-kiisa cimri intee leeg buu leeyahay lama tijaabiyo magaaladeena kama jirto cimrigii gurigana lama ogaan karo talaabad waxay ahayd injineer baa nin baa u yeedhay ku yiri nin waxaan rabaa inaad ii dhisto waayahay buu ku yiri gurigii buu u bilaabay markuu meel dhexda ma horta intuu gurigii bilaabay wuxuu ku yiri way dhis waan ku dhisi buu yiri heshiiskii bay galeen wuxuu lacagta inta leeg nin kale oo dhawaayay lacagta inta leeg baad ugu dhis ninkii baa la heshiiyay qoomiyadaha kala qiimo kooseeyo ayuu ugu bilaabay gurigii uu dhameystiray markuu guriga finishing-ga sii marayo ayaa guriga qayb u kharibay deyrkuna uu ugu jiray ayuu wixii lacagtii deyrkii wixii dhan intuu qaatay ay iska tagay ninkii injineerkii ahaa la hadlay wuxuu ku yiraahdaa runtii guriga qiimo ka badan buu igu taagan yahay jiingadiina ima dhameystirnay ima saarnay deyrkiina ima dhisna guriga intii kalena way dhameystiray talaaba qolalkiina qayb iga yeeriyo mitirkan ugu tala galay aan ahayn ee hadda ma igu dhis qiimaha maalinkii jeed hadda ma igu dhis oo waxyaabaha jira waxa kale oo jirta
arrintii haddaan ku noqdo aan u aasaasnay arrintan qandaraas la imanaya laysansi buu qaadanaya qandaraaskii markuu laysansiga injineer Soomaaliya magaciisa ku qaato qandaraaskii helo ruux kale soo kaxaysanaya ruuxii soo kaxaystay ma injineer baa horta mise injineer ma aha waa su'aal labaad in waa laga hadlay adood sii wadanaya tusaalan qaba inagu celinaya haye injineer baa mise injineer ma injineer ma inta badan sida dhacda aniga mashruuc tagay dabagal baan tagay mashruuca markaan tagay wuxuu ahaa water retaining structure dam buu ahaa water retaining structure baa loo dhisay qaybta hore shub ay tahay faceka shub la samaynayo shubku wuxuu leeyahay xirfad qaab loo shubo biyaha ka hortagay biyaha loogu talagalay in retaining ku noqdo haddii qaabka loo shubo biyaha muusiga biyo ma qabanay daamki waxa la soo kaxineen halkan qoolay suuqa jooga ayaa engineer isaga dhigay uu dhisay wixii oo dhan buu kaga ciyaaray daamki oo lagu ciyaaray completely waxaan oran karaa meesha waxa ku khasaartay lacag 30 milyan ka badan oo xukuumadda iyo deegaanka ka khasaartay 30 milyan ka badan hada waan estimation kan yaraynaya laakiin haddaan dhabu kalkulgeynay 60 milyan bay tagaysaa 30 milyan maxay ku khasaareen waxay ku khasaareen ninka xirfadlaha aan ahayn wadaadkan maadaama soo wax soo baran isaga dhigay engineerka adu markii dambe xal waxaan u keenay inaan dadkii ka bedelno bal mashruuca hadda halkee laga daba qaban karaa aan anaga solution dib muddo bil 2 bilood aniga dhex taagnaa oo dhex fadhiyo oo ka shaqeynay aniga dabagalka u tagay ayaa muddo 2 bilood inaan dhex fadhiisto inaan ka shaqeeyo ay timaday aanan lacag kaga qaadanay waxba kaga qaadanay tan xafiiskii soo inform gareey dhibka jira ayaa la yiri meesha joogo halkii meeshaas kan aanu dabagal baan u tagay ma inahayn inaan shaqada qabto waxa ahayd inaan wixii khaldan aan waa khaldantahay laakiin haddana wadankayga iyo dadkayga iyo deegaankayga oo khasaaro ku socdo dabagal marka ma noqonayso waa inaad kuul noqoto muddo 2 bilood aan halkii intaan dhex fadhiyay aan kuulahaan suuqa shubi oon ahaa meesha engineerka project manager ka noqdo wixii oo dhan aan qabtay consultantigiina halkan uu taagan yahay contractorkii maxay nimankii adiga eriyay isagu waay ma garanayo nimankan waxba ma garanayaan waxba khaldan wuxuu moodaya inaad adiga isaga ka eriyayso isaga ku dhacsan tahay marka taas ay jirta marka waxaan go'aansanay inaan asaasno taladan si ay dhibaatooyinkaas oo wax uga qabato dhibka jiro oo dhan ay u xalliso jigjigo kale xarunta laydka hal injineera ka shaqeeya sababtu waa shaqeyn maxay tahay injineer deegaanka u dhashay soo bartay wax aanay garanaya shaqeyn kale ayaa jooga aniga joogay oo u taagnaa oo laydka saacad guriga aan gashanay ayaan meesha laydka tagay waxa dhacday hal ruux magaalada ka shaqeynayay suuq in la yiri hadii kala lacag ba laga qaaday lacag baan bixiyay dheeri markaasuu shantii galabnimo waayo ma helay magaalada jigjigo dhan hal injineer oo shaqeynay lacag dheeri ayaa laga qaaday oo laaluusho wiligan hadii aad bixin weydo waa inaad magaalada jigjiga 2 sano laga yaabay inaad joogtid waxa kale oo u taagnaa iyadoo la leeyahay tiirasha laydku ma imanayaan sanadka dambe adii lagu galan sanadkan baad dalbatay ana u taagnaa waxa ka dhacday xarunta dawladda hoose ku dhawaa laydka ayaa ka dhacday sanadka dambe aad sanadkan dalbatay tiirasha sanadka dambe aad sababta sanadka dambe uu waa muwaadin xaq buu leeyahay lacagtii waa la shubay dawladda hoose way shubtay lacagtii waxa soo dhan inaan anagu intaan soo ururin dhibaatooyinka jira aan mar walba xukuumadii la wadaagno ayaan daladan oo asaasay anoo lacag ka rabin anoo wax kale kaga rabin si volunteer inaan marka xafiiska way isku ogeyn insha Allah Cabdiraxmaan Ciid wasiirka xafiiska hawlaha guud waxaan ka rajaynaynaa isna nala sii wado anagu volunteer baan nahay isna uu si volunteer la shaqeeyo meesha loo asaaso daladii xarun loo asaaso si wada jir aan caqabadii u xalino waayo wasiirka isagu ma ogaan karo caqabada hoos ka jirta runba fiican dadka la dulmiya waa dad masaakiina waxba aan baranin aan garanin goob ay ku dacwoodaan in marka injineerada xirfadii way garanayaan inta meeshii tagaan iyaguna soo arakaan si volunteer ana aan xafiiska gudbino onaano wasiiro xafiiskaaga hawshaas u taalay dibka noocaas jiray xalli hadii uu nooga baahdana aan la xallino la qabano haduu yiraahdo shaqaalan u baahano qaybta saas ku takhasustay hal la keenan aan la qabano la geeyo on federal institution dad deegaanka u dhasho luqad yaqaan la helaya dad la jaan qaadi kara la helaya dad aqoon loo tayo leh la helaya ay galaan federal institution dadka deegaanka u dhashay ka faa'iideystaan waayo wadanka waa loo sameeyay waana la wada leeyahay federal institution ee qoomiyada gaar isku ururiyaan oo dadkii deegaanka u dhashay laga hor istaago waa qalad in dadkii deegaanku intay galaan laga faa'iideysto dhibaatooyinka la xalliyo ayaan ururkan asaasnay si volunteer muddo 2 sano ka hor aan asaasnay caqabado fara badan baan ka soo gudubnay ilaa maanta waan soo wadnay anaguna waxaan u leenahay oo ka rajaynaynaa Cabdiraxmaan Ciid isaga kulay wasiir hadda xafiiska ka xubin BBA oo gudi fulinay noo ah oo federaalka dadkii nagu betelaya baa BBA guddiga fulinta ugu jiray inaan hawsha si wada jir ah anaguna aan ula shaqeyno isna uu noola shaqeeyaan rajaynaynaa maadaama xafiiskiisu marka hore nala shaqeynay inaan marka caqabadaha jiro oo dhan haday laydka tahay haday biyaha tahay xataa haday drainage problem ka tahay maadaama xafiiska magaalada uu xafiisyada quseeyo ku jiro drainage problem ka jira intaan dhibaatada si kooban aan ugu soo dhigno
aan la xalino si guud baan soo duuduubanaynaa waa guud ahaan waa rabadaan waa la daalan yahay inkastoo wax tabaysaan marar kalena waynu kulmi doonaa insha Allah horta caqabada ka jirta sektorka dhismaha ee deegaankeenna waa sektor aad ballaaran dhibaato aad ballaaran ay lacagta ugu badan waxay nagaga khasaartaa qaybta dhismaha ama dawladda ka khasaarto ama shacabka ka khasaarto labadaba khasaaro way dawladda marka xageedu u noqdo waxa weeye qandaraas project markay u yartahay dhowr milyan ku baxaya yaa waxa la siinaya marka ugu horeysaba nin oday ah yaa la siinaya on garanaynin musbaar dhan kugu jeeda baan garanayn ruux ha noqon lahayn yaan ka wada ama suldaan ha ahaado ama ayaa la siinaya xaqiiqada inaan ka hadalay way ruuxi markii la siiyo isaguna ruux xirfadan leh oo u dhashay deegaanka ma soo qaadanaya ruux shay soo qaadanaya ama buraleydaas uu soo qaadanaya ninkan buraleydii dalkan deegaanka dan kama leh isagu wuxuu jeebkiisa aan baa qusaysa waxa laga yaabaa inuu lacagtiiba kala goosto oo daily laborki lacagtii percentage uu shubay anoo hadda waxaan gacanta ku hayaa 3 guri oo 3 guri lacag laga goostay formaanna engineer isaga dhigay oo dabuuba intay u dhiibteen lacagtii ka ugu yar 200 laga goostay kan la goosanina wuxuu sameeyaa lacagtii adu marka engineerka Soomaaliga uu qiimeeyo yiraahdo 1 milyan baa ku baxaysa isagoo 500 baa dhan fursadaha ay ku khasaariyaan waxa kamid ah lacagta ka qaadan maayaan yoomiye iyo ka qaadanaya isagoo kooligan dabuubtu waa shaqo badan tahay dadkan way shaqo badan yihiin baa laga dhaadhiyay horta inaan jabinno wax loo baahan yahay waxaan la leeyahay Soomaalidu ma shaqaysato oo ah to u kas loo sameeyay ama caafimaad ah to doctor ah waa si general wax loogu sameeyay waa inoo aragnaada inay dhaqaatiir deegaanku ay Ethiopia dhaqaatiirta ugu qaalisan yihiin oo indhaha kale Dr. Abdiaziz America Allah noo dheereeyay inuu wax caqabada jiro Ethiopia wax badan u qabtay dadkii marka dadkaas oo dhan baa la oran jiray wax ma qaban jirin hadda dhalinyaro badan baa soo baratay magaalada jijiq dhismo badan oo soo ay dhalinyaro Soomaaliyeed gacanta ku hayaan baa jira marraba isku tahay maaha marka bulshada Soomaaliyeed inay iska daayaan waxaan lagu shubay hantidooda in lagu dhaco loo sameeyay ah Soomaalidu ma shaqaysato maanta dhan cadcad u taagan yahay kan dabuubkii inuu shaqaynayo ma yeesho mana shaqaynayo ninka kooliga ee Soomaaliga ahi shaqadu qabanayo 5 dabuub ma qaban karto ana ay shaqeeyaan labadaba ay soo shaqeeyeen dhalinyarada Soomaalida ah hadii ay sektorkan loo sii daayo waxyaalo badan bay shaqo abuur bay qaban lahayn hadaan guriyaha oo dhan waxa dhalinyaro Soomaaliya ay shaqeyso ka ugu yaraan xirfadii baraamo oo san wax u qabso sidan wax u qabsan aan tilmaamay sababtoo ah waa dadkay shilinka aniga baxay wuxuu galayaa xafad Soomaaliyeed gali oo bariis ka waxaysan projectiyadan khasaaraya ama shacabka khasaaraya labadaas way kala baxan iyo waxayn in marka xafiiskan hawlaha guud baa horta waxaan oo dhan hoos tagaan kulay isaga la sii faansan yahay aan aaminsanahay Cabdiraxmaan Ciid wasiirku waxyaalo badan oo caqabado jirto uu ogyahay in la daba galo si deeply oo si qoto dheer loo daba galo dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada joogtay xirfadii nin kasta ay ku qusaysana ay lagu xiri talabaad xafiiska TV-ku inuu soo leerkan anu kula rafaatanaayba isaga baari kara oo ah xirfad iska shato intuu leerki baro ma aha in lacag loo shubo in la baro oo ka go'an tahay dad ay ka go'an tahay baa jira hadii la baro ku shaqaysan lahaa ruuxa markii la soo xulanayana si xaqiiqo ah loo soo xulo cadaalad oo inta meelaha la iska soo shirkada wala sameeyaa shaqo abuur wala sameeyaa shaqo abuurkii lacagta la sameeyana inaga khasartaa inta badan waxa keenaya in aan dadkii shaqo abuurka mudnaa in la siiyo lama siiyo xafiiska dadka jooga qorqori meelaha baa laga xayn lacagta in qeydinka lagu qaybsan laga yaabaa ma gaarayso dadkii in inta hoos loo dhaadhaco dadka xirfadan leh la shaqaaleysiyo hadii xukuumaddu maadaama bulshadii baa yaa u baahan xukuumadda laftigeeda intay waqti geliso oo maal geliso inay training siiso oo meel u geyso wax soo barto waa la kala caqabado laga bixi karaa
marka in qaabka loo furo yaan arkaa in la waxeeyo